وحا إتاي متقانا إلى الإسلام بأنها الله تبارك وتعالى وحليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحول الله تبارك وتعالى قف مؤمن ديل أولكع ديلك مرك قارك سي كما أبو دعكرا قفك يكسر ديل قف مؤمنا متعمدا أبالك سبحانه وتعالى فجزاؤه جهنم مرك هنا وحا لغو أبال مرينا يا جهنم سوكما في الله جهنم هل كان لغو مدينين عقابة الله وظفيره فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولغي بكجري أو كواريا انت أكلي هذا الله ما أكين وغضب الله عليه إلهي أنا وحن رميسنا شخصيا هذه جهود إذا كي أسكرت اللقليي مثل لمذا لقلي لها إن لا إمباور قريو أما أول لسيو أما لكابو علماء يددك هالعلمي إنه وحبا كبدل لها فكر كأسقا فكرك وقناعة ووحقفك مسكحة السكوتشرة ما قرن كرتid inteena hadda nin walba waxa maskaxdiisa aqligiisa ku jira walidaalika waxa loo baahan qofka aqliga in laga hadlo aqliga iyo qalbiga in laga hadlo loo baahan yahay xabaduna kala ma hadasho dadka taas marka waxaan u baahanahay istaraatiijiyada maxaan ku yiraahdaa nimankan lagu wajahayo in la bedelo ama wax lagu daro yaan la bedelo laakiin wax lagu daro oo maxay wax lagu darayo in cilmi iyo aqli lagula doodo la qanciyo dad baa qanciyay oo beenta ku akhriyo dhalinyarada yarka dad baa qanciyay marka taana waa fariin kale oo aan rabo inaan halkan ka diro aan isku duubnaano haddaan rabno aan kala fikir iyo siyaasad duwanaan waxa jira walaalayaal hadalkayga hal arrin baan ku soo koobaya waxa jira wax la yiraahdo al-thawabit wal-mutaghayyirat الثوابت waxa la yiraahdaa waxyaabaha sugan ee guurin ma guurtada ah mutaghayyiratna waxa la yiraahdaa waxyaabaha isbedela oo waqtiga ku xiran thawabit waa waxa aan waligi guurin maxaa kamid ah waxa aan guurin waxa kamid ah diinta waliga islaam baad ahayn Soomaa ma inaad gaalowda dhici karto uma badna ma dhacayso waxa kamid ah dhiiga iyo nasabka kamid ah ilaahay ka abuuray ilaahay baa ka abuuray waliga reer hebel oo kala miyaad noqonaysaa ما نقوليس وحكمذا محن كل هذا خلقها وإلهي كأبوري أما الرجها هذا أما الدمر هذا وحكمذا ماشى أتكون على تي تشيسي أتكسر شيء ولي الصومالي بعضها ما جرت بصبر والبقاء هذا مرة الصومالي لماذا كبح حسب ما جرت إنها سحال إلى هذا ثوابت وحياة بس ونقول بدلي متغيرات كوحال إلى هذا وحيابها isbedela waxyaabaha isbedela waxa kamid ah siyaasadda maanta meel baad ku qanacsan tahay berrito waxa laga yaabaa wixii wax ka fiican inaad aragto saadaba waxa laga yaabaa wixii aad wax fiican moodaysay wax ka sii fiican inaad aragto ama wixii aad moodaysay inuu wax fiican yahay wax xun noqda dhici karta siyaasaddu waxay kamid tahay waxyaabaha isbedela ganacsigu wuxuu kamid yahay waxyaabaha isbedela maalin baad cirka tagi oo ilaahay ma taqaanaa meel sare ku gaarsiin maalinka dab waxa laga yaabaa in asalka dhulka ku dhufato oo shilin ba isla hayninba marka hadalkayga ujeedadiisu waxa weeye war thawaabida aan ilaashano thawaabida waxyaabaha sugan siyaasaddu way isbedeli ha isku talax tagina jacaylka aad nin u qabto ama nacaybka aad u qabto yuna kula tagin laana bari waa isbedeli kartaa xadiidka ugu dambeeyaan idin sheegay waxa weeye ila maanta waa maalin muxaadaro dhig iyo waxa laga hadlayaa iyo geeri baa laga hadlayaa هل حديث عجيب عن رواينا كسوكوبا النبي صلى الله عليه وسلم وحي أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما حديث آل عجيب وحي قفك جعلانيسو النبي يقول لي قفك جعلانيسو ترتيب جعلو هكنت لحتاج Soomaalida aragtadu waxa jira markay qofka ka helaan xuduudda dhaafa oo diyaarba inay waasho xaaskiisu ka heli mise waxaad ka yaabaa inuu caabudo ayadoo dhanba ama nin madaxu ka heli ama nin sheekhu ka heli markaas wuxuu dhaafayaa xuduudi la taa lama ogola tartiibtaada tartiib hawnan ma xajira sabab baa jirta marka asa an yakuna baghidaka yawma ma baa laga yaabaa qofkan isku dhacda
qofkaad ka daba dhacsanayd ee ummadoo dhan kugu taqaanay sidaa daba dhilifka ugu ahayd ama aad u jeclayd barita markaad isku dhacdaan adoo meelaha ka caytamaya markii lagu arko soo ceeb maaha maxaa dhacay markii hore aad xuduudda dhaaftay nacaybkuna waa la mid qof baad la coloobaysaa oo nacaysaa wabqid la colow baqiidaka qofkaad la coloobayso ama aad nacayso ama la dagaalamayso hownan ma tartiibtaada ha ku talax tagi maxaa jira casaa an yakuuna xabiibaka yowman ma maalin baa laga yaabaa qofka inta isfahantaan inuuba noqdo qofkaad dadka isugu jeceshiin dee qofkaad shalay meel walba caydiisa la taagnayd iyo aflagaadadiisa oo cirdigiisa iyo sharaftiisu ayna kaa badbaadin adoo hoosta kaga jira markii lagu arko barito soo ceeb iyo foolxumo kuguma aha saa darteed baa waxaa diinteennu leedahay wasatiya dhexdhexays walaalayaal waa mahadsantihiin dad dembigeenna allaha dhaafo walaalaheenna allah u naxariiso asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu